ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guutada toddobaad ee qaybta 12 Abriil ayaa waxa saacadii la soo dhaafay howlgal la qorsheysan oo lagu beegsanayay maleeshiya la sheegay in gacan sare leeyihiin dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ay ka fuliyeen tulooyin u dhow deegaanka Yaqbari Weyne. howlgalkan ayaa waxa lagu beegsaday gobol la soo wariyay in ay gabaad u yihiin maleeshiyaadkan la sheegay in ay la shaqeeyaan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale xukunsanayaal ay horay maxkamadda ciidamada qalabka sida ugu xukuntay dil toogasho kuwaas oo ay ugu dambeeyay baxsad ka ah lamaha amniga ee dawladda. taliyaha guutada toddobaad ee qaybta 12 Abriil gaashaan la sare Axmed Gaashaan ayaa waxa uu sheegay in howlgalkan ay qayb ka yihiin dadaalada joogtada ah ee lagu sugayo amniga laguna ciribtirayo kooxaha hubeysan ee waayii ugu dambeeyay khatarta ku ahaa nabadda iyo sidoo kale xasiloonida deegaanada hoos yimaada degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. waana kan asagoo arrimahaasi ka hadlaya soo aadnay operation balaaran oo ku saabsanaa meelaha looga sheegay xogna lagu sheegay inay joogeen maleeshiyaadkii xiriirka la lahaa argagixisada iyo kuwii xukunsanayaasha intaba ayaan saaka soo aadnay iyo operation kale ku saabsan gaadiidkii oo masaakiinta ay wadatay in la gudbiyo oo la dhaafiyo goobaha lagu maleynayo inay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaadka. howlgalkaas si guud ayuu ku dhammaaday. ilaahayna waa waafajiyay guushaas. waxaan ku qabanay nin kamid ah khawaarijta ee maleeshiyaadka la joogay. haddii aad xasuusto hore waxaan u sheegay maleeshiyaadka inay xiriir la leeyihiin khawaarijta ay isku dhex melan yihiin. taas cadeynteeda saakay aan helnay. waxaan soo qabanay nin la yiraahdo Xudayfa oo qiraala oo asaga qiranaya inuu ka tirsan maleeshiyaadka 2 bilood inta uu ka shaqeynayo joogay walina shacab oo ka dhamaanin. marka sidaa darteed waxaan u cadeynayaa inay isku milan yihiin khawaarijta iyo maleeshiyaadka. khawaarijta sida looga bartaba dabqoryaha qabaa'ilka isku dira waa khawaarijta si ay uga faa'iideystaan ay raas uga dhaxelaan ama wax uga darooda uga dhaxelaan una suurtagali mayso insha Allah taala. ciidanka waa amran yihiin annagoo ku shaqeynana amarka ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha naga sareysa madaxda naga sareysa amarka ku shaqeynayna. hawshan insha Allah taala waa soo afjarayna meel fiican oo noo mareysa. hadalka taliyaha ayaa ku soo aadaya iyadoo waayihii ugu dambeeyay ciidamada dawladda kuwa ku sugan gobolka Shabeellada Hoose ay ku raad joogeen maleeshiyada ay hore u xukuntay maxkamadda ciidamada qalabka sida kuwaas oo waayihii ugu dambeeyay iska soo duubaya muuqaalo waxaana muuqaaladaas intooda badan lagu baahiyay baraha bulshada.